waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waana sheekadii shabeelka iyo hawraartiisii mahmaahda noqotay. dhegaystayaal, shabeelku wuxuu ka mid yahay dugaagga ay soomaalidii hore murtida kula baxday ee hawraarta mahmaahda noqotay ay u saarisay. sida la malayn karo, inkastoo uu hadda gabaabsi ku yahay, haddana waayadii hore dhulka soomaalida aad ayuu ugu badnaa sida dugaagga iyo duurjoogta kalaba ay ugu badnaayeen. taana waxaynu ku rumaysan karaynaa sheeka xariiro, maanse iyo mahmaahba sida uu suugaanta soomaalida ugu jiro. wuxuu ku caan yahay barabara madmadow, aad ayuu u dheereeyaa, geedahana aad ayuu u fuuli og yahay. cidoodka ay duurka ku wada nool yihiin ka sokow, shabeelku wuxuu aad u laayaa xoolaha ay reer miyigu dhaqdaan, siiba ariga. isaga ayuu tunjireecsadaa, isaga ayuuna ka jecel yahay meesiyada waaweyn ee ugaarsigooda uu ku dhibtoon karo sida geela iyo looda. sheekooyinka haddaba ay soomaalidu bahalkaa ka sheegto waxaa ugu caansan midda soo socota. waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mida ayaa meel uu shabeel dhal uga tagtay geel didayaa ku soo beegmay, kaasoo inta ku dhabaabaceeyey aad u laayey. ugaarsigii markuu soo dhammaystay oo cawl iyo goodir wixii u dagtay uu ka soo haagay, ayuu shabeelkii ku soo noqday halkii ay maxastu u tiil ee uu saaka ku ogaa. mase maxaad ii dhiibatay? waa 4 mayd ah oo midba uu meel gorofsan yahay iyo mid durduradii geela cagihiisa kaga baxsaday oo walaalihii ku dul ooyaya. markaas buu dhirfay oo gurxamayoo ilkihii isku xoqay, afkiina isku dari waayey. wax yar kadib ayuu shabeelkii u jeestay gebnihiisa kii keligii ka badbaaday ee goobjoogga u ahaa markii dhasha laga laynayay. umil daraaddii isaga oo weli la xasilina ayuu weydiiyey ciddii ilmaha gumaaday. kolkaas buu kii yaraana ku jawaabay, geel didaaya ayaa ku tuntayoo wada laayey. jawaab runa ayay ahayd, waxayse ahayd mid aanu jeclaysan. wuxuu rabi lahaa mid taa ka duwan inuu gabanka ka maqlo, maxaa yeelay ugaarsiga geelu waa ku adag yahay. dabadeedna intuu qunu fadhiistay oo gorodda laalaadshay ayaa la maqlay isaga oo leh, gabnahaygii geelma layne waxaa laysay garo, oo ah magac wadar ahaan ay soomaalidu riyaha ugu naanaysto. maantaa buu shabeelkii dirir u qaanshaystay. isaga oo cartamaya ayuu arigii baabbaha ka dhigay. ban iyo buurba, ri iyo lax, meel alla meeshuu ku arkayba wuu ku baduugay, ilaa siday sheekadu leedahay tiradoodii ay geyiga aad ugu yaraatay. dabadeedna hadalkii shabeelka ee ahaa gabnahaygii geelma layne garaalaysay ayaa wuxuu noqday oraah lagu maahmaaho markii lala kulmo qof ka meermeeraya inuu abbaaro dhab ahaan cidda ay godobtiisu ku maqan tahay, isla godobtaana u haysta ruux kale oo aan wax ku lahayn, ha yeeshee awoodyadidiisa awgeed uu ugu dhiiran karaayo. sheekada iyada ah ayaa waxaa beri ku garamay gabyaal la odhan jiray maxamed cabdulaahi jibriil oo afdurdur lagu naanaysi jiray. sida la wariyey, galbeedka soomaalida degta maansayahano ka tirsan ayaa gabay cay ah waxay u tiriyeen qolo ay degaan wadaag ahaayeen. waxay ahaayeen 2 jirib oo oday qura ku abtirsada, inkastoo kuwa gabayga cayda ah soo tiriyey ay tira ahaan ka badnaayeen kuwii ay u soo tiriyeen, sidaa darteedna ay laandheerannimo u sheegan jireen. si kastaba ha ahaatee, degmadii aflagaadada loo geystay aad bay tixdaa uga xumaatay. nimankii u soo tiriyeyna wax garowsho ah kama ay helin. xaggooda inay ka timid intay dafireen bay weliba waxay ku masabiteen afdurdur oo allihiis ay la yahay, ahaana gabyaa aan labada reer midna ku qolo ahayn, asii ku degaan ahaa. intaa ka sokow wuxuu ahaa nin ka soo jeeda degmo ka mid ah kuwa ay tiradoodu yar tahay oo marar badan ay soomaalidu tunjileecsato, sidaasna ay gartooda ku weydaariso.
yeelkeede nimankii loo soo gabiyey si degdeg ah ayay u rumaysteen masabidka kuwii u soo gabiyey dabadeedna afdurdur bay eedii kula kufeen isagiina waa ku gacan sayray si aftahanima ku dhan tahayna waa isaga deedifeeyey wuxuu ugu dhaartay misena ugu xidho daraaqay weligiis iyo waaqiis inaanu gabayga caynkaasa iyo mid kale toona u tirin sidaa awgeedna ay ku habboon tahay qoladii u soo tirisay way garanayaane inay iyaga ku eedaystaan ha yeeshee wax walba uu ku dacwiyey iyo dood kastuu isku daafacayba waa lagu diiday markii haddaba dheg jaraq loo siin waayey ayay sheekadii shabeelku afdurdur ku soo dhacday nimankii tixda cayda ah soo tiriyey ee laandheeraha ahaa ayaa ula ekaaday geelii gabdhaha shabeelka inta ku durduriyey askaxda ka dhigay kuwii loo soo gabiyey iyaguna shabeelkiibay ula ekaadeen isaguna wuxuu isu arkay riyihii iyaga oo aan waxba u dhibin uu bahalku gardarrada ku layn jiray dabadeedna kolkay u caddaatay in lagu haadsanayo tirayarida qolada uu ka dhashay ayuu gebiyey wuxuu yidhi shabeel baa carruursana dhalay oo qaar shabaab yahay ee xil shareeran buu geliyey iyo shawli iyo ceele isagoo shaqaysi u baxay oo shalayta dheef doontay oo cawl shariir badan leh iyo goodar shilis laayey oo shaarubada dhiig ku leh oo libin la shoocaya shabaakooyinkuu xaaska dhigay shaarda lagu laay mid sitaar ah oo galay haluul shar isla soo taagiya shuftadii inay geel tahay yuu shubay warkeediiye shifo eebbahay ugama dhigin sharaxla weedhaase shaadiro idaad iyo garuusheed ku qaabilaye shanshagaabideeduu arkaye lama shuqeeyeene anna waxaa rag ii shabinhayaa waa shabaabnimo ammaan waaq haddii uu shin yahay la ima sheemeynabu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo